dalka saxaq wuxuu leeyahay inuu xuduudiisa ilaaliyo. xuduudda Somaliland iyo xuduudda Djibouti, Soomaaliya, Talyaaniga, ta Ethiopia, ta Kenya inta horta waxa sameeyay quwadihii European-ka ahaa 1885 teen waxa kaga duwantay ma jirto. marka imanka xuduudeena tagina khasaaraha dhacayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigii way ku dhacday يوم الأحد غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام قلوبتها kala jeesatay ayuu ku maantana qulubta baan isku keenin anagu waxaan ku doodi jirnay wadaxayno sharci waatan ilaa shaarkaaga ugu qabsado walaga garbaxa balay waan ka garbaxno isa saarkii ku soo tageeyay oo horena loo soo sheegay oo la tooray kiibay ku go'aamiyeen wata ogolaanay waxa la shacbiga reer Soomaaliland ee dibadda jooga dibadda Soomaaliland laga diliyaa oo been la taagan yahay is abaabula waxaan tirahaan waxa la yiraahdo ma taqaanay Soomaaliya sanaag cayn oo Soomaalida ka baxsan oo jirta ma jira Soomaalida waa mid doorta buurta waxa keenay waxa cudurka cudurkii keenay wala daweeyay santa miski bay ahayd cudurka ka dhashay khilaafkii siyaasadeed wixii bila sharciga la doonayay in lagu wado xoog baa laga horkeena xoog baa lagu waday wax aan sharci ahayn deetiib horta dadka xanaaqay deetiina dhamaatay dhammaan waa laga keenay qabiilkii wala nacay waxa loo footiin doonaa iyaa wax qabanaya iyaa dalka shaqo keenaya iyaa ixtiraaf keenaya iyaa cadowgeena uga hor joogsanaya dadkaas u baahan yihiin insha Allah ta'ala waxaan rabeenaa in doorso ficil noo dhacdo ka ayaga khayr u leeyahay dalkana anaga hadii khayr iyo leeyahay aakhiradeena ka inay qof ilaahayna siiyaan doonina aan ku ducaysanaha markasta ilaahu mid khayr qaba ay ilaahayna keeno waan ku kalsoonay markastaba aanu dalka qaran baan doonayay kursi ilaaha bixiya gudoomiyaha xisbiga ucud injineer Faysal Cali Waraabe ayaanu jecelahay in aanu dhowr su'aalood weydiino gudoomiye dhawaan waxa tagtay in og adigoo tuutahaaga labisan bal arintaasi nooga waran bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu calaa sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam horta waxa weeye ciidamadu amba og ha joogeen amba ha joogeen tugraqe waxa weeye ciidamadii qaranka waa kuwan ku seexano difaacooda nabadgelyada haysana iyaga inaga wakiila marka ilaa intii qolqoladu bilaabatay la saanood markasta xisbiga isbarbatagay inaan dhiirigelino inay guulaha Ilaahay keenay inay ku manaystay aan ku hambaliyano caadadeeda ahayd markii 26 bisha Julayna ay dhacday arintana oo yimaadena waxaan tusinay inaan wali halkii taaganahay oo u hayno kalgacalkii iyo taageeradii tii wali baan si laba laab insha Allah ta'ala aan dhiirigelinay gudaha iyo dibadaba anoo ka wakiila ayaan marnay marka waajibna saaran buu ahaa وهجاج ولقى واحد يقولون شرتين إذا ماذا يضوى إلا حدود كي إن أي قارين عارفين كاسو كل هذا مركز أوك شوكتي واد قدرتي مع تفاصيل هذا الشيء طبعا هو ذلك السحق حوليه إنه حدود السلالية حدود السومالان هي حدود جيبوتي Soomaaliya, Talyaaniga, ta Ethiopia, ta Kenya inta boorteed waxa sameeyay quwadihii European-ka ahaa 1885 teen waxa kaga duwantay ma jirto. qarannimadeena markay helnay waxaan nahay dalkii u horeeyay Soomaaliya qarannimo helnay af Soomaali ku hadla waxaan dowr ka bidnay inaynu wadayno cilmigeeda lahayn shan Soomaali soo keeno oo garanayeen inay taas suurtagal tahay in kala كمان فكرين وإحنا نسكت دينا مركا واتن بلا شروط أبياشي أو ياشين أي صومال إيطاليا كل بين بشيش جلان إذا مركا بابا لنا اعترافه شان يصدم وضبين اعترافه أو يو أنتن اعتراف يوم ولي يو دول نمدو دي هلين أي كود جلاي من ما كنا واقع يمكن يقول لي اللي ما نصير دول نمه الله ودبال دجال بجرتو وحيد دول أنتي أينهم بدنا اسكت درسنا وحن ماشى لو قالوا واحد مقع لبد دول اسكت تجي Soomaaliya
Somali Republic baan la baxnay not Somalia Somali Republic la baxnay horta saasaan dowlad ahayn khasaaro keenay taasi laba jeer baynu ku dagaalanay Ethiopia 64kii iyo 70kii inaynu ka dhex saarno xuduudda bedelo Ethiopia iyo Somali Republic u dhaxaysa labadii waan khasaarnay markii uu dambeysay quudii labadii quudood tii galbeedka iyo tii Ruushka USSR way isku keenteen oo tii xoog linaga soo saaray that means xuduudahan lama bedeli karo chartiga EU waxa ku xiran in xuduudihii laga dhaxlay isticmaalka inay yihiin muqaddas marka xuduudeenu waa xuduuda sharci noo diiday xuduudeena inaan tagno dawlad baan ku darsanay sida isku darsameen Masar iyo Suuriya sida isku darsameen Gambia iyo Senegal sida isku darsameen magaalada Colombia iyo Panama way kala baxeen labada hadday isku darsameen heshiin waayaan way kala baxaan shuruudana ma jirin shuruudaha jabiseen oo ma haddaad tahay Soomaaliya aynu leedahay dawladdiina ma noqon kartaan ma jirto وحين أساس وعقلاني مكان يمكن الحدود إنه تجينا خسارها دعينا دعاء سبحانه وتعالى نبي يكون عظيم يوم الأحد غزوة أحد نبي عليه الصلاة والسلام قلوبتها كلا تيستي أيوة كل ما أنت قلوب تبان سكو كيرينا إن واحد إن قدوم واحد تشتغل قد لحد حادنيد أو يكون داوية خلاف كي أو إن عقاش يصلادين تا إن برجع برعو إن أرنتي إن كل هذا هالكيدين مرسا إن horta hadaan soo dhaweynay san hore u sheegay anagu waxaan ku doodi jirnay wadaxayno sharci waatan ilaa hadda sharka lagu qabsado walaga garbaxay balay waan ka garbaxno isa saarka ku soo jabiyay oo horena loo soo sheegay oo la tooray kiiba ku go'aamiyeen oo tan ogolaanay taa wax loogu xigta in marka khilaafkii siyaasadeed aan dhameystirno sidii waqtiga ay soo ayimeen ee doorasho u dhici lahayd حلال أو حري لكن واحد كوكوة إن ضدك لما يجيو قال لهم إيه وهرا لا إيه أم هرا أصعنا ويا هرا واحد أصعنا واحد ويا إن الشرف تاني سوء لنا حدود ديني تقنا إلى لنا نبت قليدة إلى النور ماذا دجالك أو إنه واحد ما كان دعيا لليلة سعمل بكان دعيا ومحابس باللينيا وعروب الجوجولعيا ولي أنا ما نسمين تانا سمين منه لكن حدودنا وانتجنا وعلى الشعب الرئيسي ومهلنا الدبدة شوغا الدبدة سومالي اللي قد ليها وبين اللي تاجيه هي أبابله واحد تناهان واحد يراها منطقة سوريا سناج عين وسومالي كبح سنو تشرتها متشر سومالي وامد حدودنا حق بانو لنا يعني حدود التجنا وين نتجنا بإذن الله تعالى waxaa Faisal waxa kale iyadana arinta buurta markii ugu horeysay waxa tirahay laga soo dago bal arinta qulleedo dad badan way tabayaan sideebay process-ku u socdaa lagu kordhayn doorta buurta waxa keenay waxa cudurka cudurkii keenay wala daweeyay santa miski bay ahayd cudurka ka dhashay khilaafkii siyaasadeed wixii bila sharciga la doonayay in lagu wado xoog baa laga horkeenay xoog baa lagu waday wax aan sharci ahayn deetiiba horta dadka xanaaqay deetiina dhamaatay hadda waxaan leenahay process fiican buu socdaa hal la qarameeyo waxa ku jira dhalinyaro badan oo Eritrea wax ku soo baratay ciidamada Eritrea lagu afduubay laha wax la yiraahdo gadar ayaa jooga hal laga faa'iido maanta inaga u baahan inaan ciidamada xoojino la iska garab dagaalamo wala soo dejiyay way soo baxayaan insha Allah taala meel fiican oo maraysa ciidamada Soomaaliya qaranka geesiyaashana waxay noqonayaan garab wala insha Allah wala qalameynaya waxaa ugu dambeyntii Faisal aan kula kaftamay tuutihii baad xiratay waxaad moodaysay markii aad joogtay oo iyo markii aad ku dhawaaqday arintii tiri tuutaal xiralayaaba in raayil caamkaaga uu kor u kacay doorashooyinkan markaa mustaqbalka insha Allah haday dhacaan way dhici doonaan maxaa rajay qabtaa in badan baa la yiri Faisal horta waxa weeye daanu markasta dalka waxaan ku leeyahay abaal weyn intan geliyo cid gelisa ma jirto haday nabadeyntii tahay haday tahay isku tanaasubkii haday tahay waxba ana
وبرنسبل كو إيمي أنا كرسي إله وبحية وحيد ضل به ما أنت واحد لو فوتين قبيل به وأنا قدي ما أنت شوالي وحي قبيل كي لو فوتين قلنا بورت تكسي قاعد اللي بح شركة هوري قاعد اللي بح بري وطني العين قلنا بدحتوي ذاك الشيء ما كوي وقبيل به لا قبيل